marar badan haddaad codsato Google AdSense oo lagugu diiday wax badan lagugu soo celiyay oo lagu yiri addresskaada waa inaad confirm gareysaa mar walba addresska inaad confirm gareysaa dadka aad bay ugu dhib qabaan balse maanta waxaan rabaa inaan ku tuso addresskaada adigoon ku dhiboon halka guriga adigoo joog adigoo Soomaali joog adduunka meel walba ka joogtid addresska meesha ku cusubta adigoon joogin ayaa maanta ku tusaa sida loo verify gareeyo maanta taasna waqti dheer kaaga bixin aniga step by step ku tusaayo halkan hadda aan joogno arkaysa umeenaya inay tahay meeshaan ay tahay meesha oo markii dashboardka soo gashid Google AdSense aad imaadid waxa lagu leeyahay waxa u baahan tahay 6 lambar aad u baahan tahay mar walba in halkaas addresskaas uu confirm gareysa mar walba waxaan rabaa maanta inaan ku tuso qaabka loo verify gareeyo waxaad imaanaysaa meeshaan problem with your pin haafin meeshaan ugu dambayso pin troubleshooter meesha ku qoranta ku dhufanaysaa ka bacdi waxaad tagaysaa page cusub ku geenaya baalkan wuxuu geenaa page cusub ka bacdi waxaad confirm gareynaysaa emailkan inaad leedahay emailka waxa lagu leeyahay emailkan hebel waa emailka aad ku samaysatay Google AdSense emailkan adiga ma leedahay lagu leeyahay yes aad leedahay waxaad leedahay continue ku dhufanaysaa ka bacdi waxa lagu weydiin waxa leeyahay pinka maxaa ku dhacay pinkaada ma codsatay wax badan ma soo pinkaada waa haysataa waxaad leedahay pinka maya I have not received my pinki wali meelin baad leedahay continue ku dhufanaysaa ka bacdi marka waxa ku soo baxayso mail form number 2 number 1 number 2 3 waxa leenahay meesha ugu hooseysa contact form ku dhufanaysaa contact form oo ah personal information kaada pinka meesha lagu buuxin lahaa yaa tagaysaa page-ka markuu saan ku keeno page-kan markuu sidaan ku keeno page-kan waxa laga baahan information kaada waxa laga baahan ID gaada hadaad ID leedahay hatta hadaad ID kale iska daa shakhsi aad leedahay oo kuwan driving license muhiimadu waxa la rabaa magaca meesha kugu qoran iyo waxa la rabaa magacan kale inay isla hadaan bal rabaa waxa la rabaa magacaas iyo inay magaca isla hadaan baa laga rabaa marka taas marka waxa ku sahlayso in magaci iyo magaci kale labadaba in isla hadaan adigana markaas hadhow wixii aad confirm gareys marka waxa laga rabaa marka inaad soo qaad publisher ID waxa laga helaa qaybta home ka soo heli kartaa oo qaybta ugu sareysa ka soo raadin kartaa publisher ID waxa oo meesha hadda home ka joogtid qaybta ugu sareysa aad kartaa calaamada home wixii xaq ka jiro oo lambarkaas BUP das pop ay ku qoran tahay ilaa lambarkaas dheerka badan lambarkaas waa lambarka publisher ID ka aad leedahay halkaas waa ka soo qaadan kartaa waxa kale oo jirta ka soo qaadan kartaa publisher ID meesha ay ku qoran tahay account ayada laga soo qaadan karaa waayo marka account ku dhufatid account information ay imaanaysaa haddii ay imaado account information waxa arkaysaa marka publisher ID inay meesha ku qoran tahay kii hore ku soo qornaa iyo midkan kulleen isleeyahay marka meesha hadda waxa arkaysaa hadda waa ka qarnaa aniga publisher ID waa ka qarnaya waayo waxa way for security purpose marka waa soo copy gareynaysaa midkaas soo copy gareynaysaa meeshaan iyo AdSense publisher ID ku qoranta best ku leedahay meeshaan aad kaleeto plus ku qoranta waxa la rabaa micnaha magacaada iyo ID hadii waxa la rabaa wax weyn lama rabo muhiimada xataa bank statement aan du yahay waa laga rabaa waxa laga rabaa rent xataa meel guriga kirada ku jirto intuu receipt laga rabaa micnaha waxa la rabaa muhiimada bas magaca ayaa laga rabaa marka waxa jiri kartaa marka kaas marka in xataa qofka xataa uu ku soo diri karo yaa diri kartaa waxa la rabaa magaca inuu is yeesho bas muhiim ah magaca inuu is yeesho muhiim iyo address kan baa iska rabaa marka hadii address ku imaan sana yeeli kartaa sana waa kaaga saaranta waayo qofka xataa hawsha ku sameynay yaa dhihi kartaa ii soo dir dadka marka dhib ay ku qabaan waayo waxa sameynaysa qofka magaciisa meesha ku qoraysa qofkaas waxa leedahay ID ka ii soo dir marka ID ga magac ku qoran iyo magaca address ku qorna inay isla hadaan bal rabaa inay isdaamaan lama rabo hadii su'aashan u baahan tahay in hore laga sii jawaabo oo faahfaahin dheer uga baahan tahay Instagram-kayga la soo xiriir kartaa Instagram-kayga soo xiriirtaa waa kasan kaas jawaabaya hadda waa arkaysaa formki in hadda buuxinay cali 24 saacadood nusug marka inta ka sii horeysana hadii xataa jawaabo qaarkood u sii baahan tahay forum jiro Google ay leeyihiin oo waayo hal laga yaabaa su'aalaha qaarkood group-ya jiro hadii xataa aragtina waxyaala sii fiiraasid waa meesha ka raadin kartaa my groups favorite groups reset groups group-yaha kana ka heli kartaa marka hadii inta marka hadda waxa weey aan isla fahnay waxay noqonaysaa mar walba in adiga xataa hadhow ay ku sahlanaato in aad ku sameysid waxaada 4 saacadood marka laga soo wareego waxa weey waxa ku soo dhacay Gmail ku soo dirayaan hatta adigu waqtan intii hatta qaadan ama waxa laga yaabaa in one day qaadato one day ka bacd hadayna sabti axad ahayn hatta laga yaabaa in soo diraan caadi hatta sabti laga yaabaa in ku soo diraan marka waxa ay soo dhacay meeshaan AdSense ay soo dhacay waxa la soo diray message oo email soo diray meeshaan thank you for contacting Valerie marka waxay dhahaan wax qof fiirin doono waqtigan waa qaadan doona anaga naga warsugantii lacala ay wax dhacaan naga raalo amal leey marka ku kalna way ku soo diri doonaan marka laba lagu soo diraya laba emailada lagu soo diray waa laba email mid waxa lagu sheegi doonaa inuu formka gaaray oo formka ay gacanta ku dhigeen oo hawshan lagu jira lagu sheegi doonaa kan labaadna waxa lagu sheegi doonaa in formku soo gaaray oo lagu aqbalay oo hawshaada okay noqoto saan wixii laga bilaaban hatta YouTube hadda isticmaalaysa ama hadda website isticmaalaysa in macna xayisiintaada ay shaqaynayso hadii marka xayisiintaada la aqbalay oo xayisiintaada wax dhamaalo la wada aqbalay oo emailada ku soo dhacaan labada ku qanacday oo iska akhrisay oo wax dhamaalo ay ku fiican yihiin oo ay proof identity iska rabay waayo wixii dhamaalo waa lagu way ku saxmeen waayo ID-gi iyo magac way is yeesheen
dadkana way arkeen waana lagu aqbalay saan wixii laga bilaaban waxay noqonaysaa in hawshaadi oo noqon doonto verified address ay ku noqon doonto oo waxaad ku sahlaan doonaa wax dhamaal way ku fiicnaadeen markaas waxaa bilaaban doonta in xayeysiinta lagu saaro YouTube hadii lagu saaray iyo hadii lagu saaro hatta hadii meesha hore ku soo noqotid oo home imaadida meesha hore account ku soo dhufatid ka bacda account verification check u dhufatid waxa arkaysa in complete meesha ku qoran tahay verify your identity meesha hore ku qoran need attention ku qoran marka video bilaabay laakiin hadda waxa ku qoran arkaysa in complete ku qoran tahay saasna waa loo approve gareeyaa mar daba marka xaway dib kuma qabanayo hadii payment-iga arabta qaybtan payment marka soo tagtid payment information tagtid magaca payment-iga waa iska saxaysaa hadii aad leedahay inaad leedahay kala PayPal iyo in waxyaalo badan aad leedahay wax dhamaalo ama bangi oo lacag ku shubanaysid hadii lacagta markay meeshaas gaarto oo hadana meeshan $100 leey mar walba lagu soo dirayaa markay $100 hadii su'aalahan isbuucaas ay shaqeyneen $100 ay ka yar tahay liima soo diray laakiin hadii ka badan oo soo diraya halka marka waxa weey waa dashboardka waxa weey maalin waxa sameysay shalay waxa sameysay 2 bilood soo dhaaf waxa sameysay bishii la soo dhaafay waxa sameysay wixii 28 bilood soo dhaafay halkan waa balance wixii dhamaalo sanadihii ama waqti badan hadii aad lacag la bixin lacagtaada kulli 2 bilood 3 bilood kulli halkaan ay kugu soo qormaysaa marka hadda waxa weey wixii dhamaalo saas isugu ka aadeen hadii marka u baahan tahay videogan iyo video kale taa waa jiraan kulli channel ku jiraan sida AdSense lacag looga sameeyo video hore ka sameeyo waa jira kana ku dhigay isagana. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.